Assalaamu calaykum asxaabta fahamka. Adduunku qof kasta wuu riyoodaa, qof kastana wuxuu doonayaa in uu noloshiisa ka dhigo mid ka duwan halkii uu ka yimid. Laakiin inta badan waxbaa la iloobaa, kuwaas oo ah dadaalka, dulqaadka iyo go'aanka adag. Mowduucan aad maqlaysid waa mid ka mid ah mowduucyada adduunka looga jecel yahay ee dhiirigelinta xambaarsan. Bilowga mowduuca, tuulo yar oo sabool ah ku taalay dalka Hindiya. Halkaas waxaa ku noolaa wiil la odhan jiray Dhirubhai Ambani. Qoyskiisu ma lahayn wax dhaqaale ah, waxay ahaayeen dad sabool ah. Wuxuu bilaabay nolol adag, isagoo aroornimo ku iibin jiray buskud iyo cabitaan fudud suuqyada magaalada. Laakiin wiilkan yar qalbigiisa kuma jiri jirin cabsi ama quus. Markii uu 16 sano jiray, wuxuu u safray dalka Yemen, halkaas oo uu ka noqday shaqaale caadi ah oo ka shaqeeya warshad saliidda safaysa. Maalintii wuxuu shaqayn jiray saacado badan. Wuxuu bilaabay inuu kaydiyo wax kasta oo yar oo lacag ah, isagoo had iyo jeer isweydiin jiray, sideen ugu bixi karaa saboolnimada? Sideen ku gaari karaa nolol ka duwan tan aan hadda haysto? Kadib dhowr sano oo uu shaqo adag hayay, Dhirubhai wuxuu go'aansaday inuu ku laabto dalkiisa Hindiya. Dad badan ayaa la yaabay sababta uu u soo tagay shaqadiisii fiicnayd, laakiin isaga aragtidiisu waxay ahayd, wax kastoo aan haysto waa meel aan ugu gudbo, ma ahan meel aan ku nasto. Wuxuu bilaabay ganacsi yar oo dharka dhoofiya. Wuxuu la kulmay caqabado. Wuxuu aaminsanaa in guuldarrooyinku yihiin casharo, dhibaatadu ay tahay jidka guusha loo maro. Qofka guulaysta yahay kan dulqaadka leh, aan ka cabsan dib u dhac iyo ceebta. 20 sano kadib, Dhirubhai wuxuu noqday ninkii ugu horreeyay ee asal ahaan sabool ahaa, balse noqday maalqabeen weyn oo Hindi ah. Wuxuu aasaasay shirkad weyn oo la yiraahdo Reliance Industries, oo maanta ka mid ah kuwa ugu waaweyn Aasiya iyo caalamka. Waxa uu noqday tusaale nool oo muujinaya in dhibtu aysan ahayn dhammaad, dulqaadka iyo dadaalku ay yihiin labada saaxiib ee guusha. Riyada ay noqon karto xaqiiqo haddii aad u dhabar adeegto. Waxaa laga yaabaa inaad maanta ku sugan tahay nolol aad u adag. Waxaa dhici karta in dadka kugu xeeran ay kuu sheegaan inaad guulaysan karin. Laakiin haddii aad aaminsan tahay naftaada, haddii aad dadaasho, haddii aad sugto waqtiga Alle, adiguna waxaad gaari kartaa halka aad rabto.